بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دواad barnaamijka tusaha caafimaadka oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka maqashaan Raja TV xaruntiisa magaalada Muqdisho toddobaadkan barnaamijka tusaha caafimaadka waxa idin soo jeedin doonta anigoo ah Bahaaji Cabdullaahi Salaad toddobaadkan barnaamijka waxa marti ugu ah mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalada magaalada Muqdisho toddobaadkan mowduuca inuu ka hadli doono xanuunka isku furanka ee ku dhaca hooyada uurka leh. Kusoo dhawaad barnaamijka tusaha caafimaadka Raja TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. ku dhawaad walaashay aad iyo aad waan ku faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo barnaamijkan. Waana barnaamij aad iyo aad bulshada rabaan in laga jaahil bixiyo. Waan ku faraxsanahay insha Allah. Doctor waa sidee dareenkaaga maadaama maanta ay tahay markay kugu horeysay stuudiyaha Raja TV aad inaga la qayb qaadato barnaamijka tusaha caafimaadka. Walaa markii ugu horeysay waan ku faraxsanahay markii ugu dambeysay inaan noqoto majecli mar walba insha Allah waan soo booqan doonaa. Doctor waxyaalo oo background-kaaga isbitaalka hadda aad ka howlgasho waxbarashadaadii wax yar adigoo inoo sheegay. Waxbarashadii daan dhawaaq sheekayna waqti qaadanay hal ilaa hadaan ka sheego aan magacayga waa Dr. Mahad Garad Xasan waxaan kala galaa isbitaal ku yaal Muqdisho gaar ahaan isbitaal Daniel waxaan joogaa qaybta oo dhalmada ama qaybta haweenka waxaan ahay dhaqtar obs gaynaa jaamacadaha ku yaal Muqdisho jaamacad kamid aan ka soo baxay waxaa bachelor degree. daawadayaal toddobaadkan barnaamijka tusaha caafimaadka waxaan ku soo qaadan doonaa mowduuc aad u xiiso badan mar horena loo baahnaa in laga hadlo xanuunka fistulaha. Doctor ugu horeyn su'aasha ugu horeysan rabaan ku weydiiyo waxay tahay waa maxay xanuunka fistula ama isku furanka haweenka obstetric fistula? horta xanuunkan isku furanka waa xanuun aad iyo aad wadankeena u saameeyay gaar ahaan hooyooyinkeena. isku furanka waxay dhahdaa maxay isku furanka aad iyo aad horta u tiro badan yahay laakiin waxyaalaha ugu muhiimsan ama la rabo bulshada in loo sharaxo meesha wax ka jiraan waxay tahay isku furanka waa dalool ay isku daloolsamayaan qasnada saxarada hayso qasnada kaadada marayso iyo qasnada ilmaha marayaan waana saddex qasnadood oo isdul saaran kor waxa maraysa qasnada saxarada hoosna qasnada ilmaha dhaxda hoosna ugu dambeeyna qasnada ay maraysa saxarada saddexaas qasnadood markay ayaa isku go'ayso markay isku go'do waxaana gooyay cunuga madaxiisa sababta cunuga meeshaas cunuga waxa uu garan waxa uu buush gareynaa waqtiga loo talagalay hooyada inay meesha cunuga ku jiro in ka badan 32 saac 3 maalmood 4 maalmood ayuu cunuga madax iskaga jiraa waa wax aad iyo aad loogu xumaado markuu muddo meesha cunuga oo riixo meeshan waa xub waa soft waa meel xub waay hilibin kuma jiro laf kuma jirto waxa dhan waa murqo iyo xub isdul saaran markuu meesha cabaar cunuga oo riixo wuxuu ka joojinaa meeshaas inay hesho operation ama dhiig inay meeshaas ka joojinaa markuu meeshaas ka joojina dhiig inay hesho maxaa dhacaya meeshii bataatan meeshii eriyada cunuga oo bushkareena oo dhan inay madowaato ayaa dhacayso markay madowaato hooyadii si un markuu ilaahay u kala keeno ama sisiiran shaqsa loo sameeyo cunugii kor laga saaro ama cunugii asoo ka go'an ama soo jabjan loo soo bixiyo ama kalootim loo sameeyo hooyada markuu si un ilaahay u kala keeno hooyada muddo kadib meeshii madoobaatay oo dhan way go'aysaa kadib ayaa isku furanka la arkaa waa isku furanka waa intaas ay sababto hooyada markay dhasho ama qaliil loo sameeyo kadib guriga ay tagto muddo kasoo wareegto meeshii cunuga uu bushkareynaa dhan way madoobaanay dhiigaan dartiis kadib meeshan ayaa go'ayso isku furanka sidaas ah la Doctor Mahad su'aasha labaad aan ku weydiinayo waxay tahay maxaa sababa isku furanka ama sida inta badan bahda caafimaadka u yaqaanaan obstetric fistula? horta baaji aad u mahadsan tahay
waxaasoo waxay tahay horta adduunyada horumartay aad ugu yarahay isku furanka adduunyada aan horumarinay saddexaadni isku furanka aad ugu badan yahay soo meeshaas marka waxaa kaaga cad dhakhtaraan inay jirto qofki inuusan helin xilligii oo u baahnay caafimaad ama xilliga u baahnaa gargaar qaasatan hooyada xilliga foosha inaysan helin dadka horta isku furanka ku dhaco inta badan 5 waxyeelood ay kulansadeen ama iskugu yimaadeen kow waxaa kamid ah hooyada dhammaantood waa dad ka yar 24 sano number 1 number 2 hooyada waa cunugii ugu horeeyay way yaryihiin kuwo iyagoo hore wax soo dhaleen isku fur noqdeen aad u yaryihiin haddii mar hooyada hore ay soo dhasho isku fur noqoto waa dhif iyo qalil marka meesha wax kaaga cad iridkii laga bixi lahaa ayaa xiran hooyada waa cunugeedii ugu horeeyay isku furagta badan waxa ku dhaca 22 sano wixii ka yar 22 years only wixii ka yar ay ku dhaca isku furanka lambar 3 dadkaas qaab jirkooda waa noocee sidee u yeelan bulshada ma ka duwan yihiin sidee u yeelan xaaladooda sidee ku nool yihiin dadkaas qaab dhismeedkooda ama structure-kooda dad lafooweyn ma ahan dad oo hilib lama ahan waa dad lafooda yar yihiin waa gabdho aad u tabayr number 4 ilmihii isku furanka sababane hooyada way ka dhimanayaan oo ma sii noolaanayaan number 5 guurkii ayaa meesha ku barbaraa laba qofood way kala tagayaan doctor waxaa sheegtay waxyaabaha koos gareeya ama sababa fistulaha ama obstetric fistula gabdhaha primada ah ama hooyada uurkeedii ugu horeeyay inuu badan yihiin ka waran multibaaraha hooyada muddo badan ilmo badan dhalaysay iyagoo xogooda ma u nugul yihiin markii loo barbar dhigaayo hooyada cunugeeda ugu horeeya walaashay horta waa u nugul yihiin laakiin waxa waaye 10% sababta hooyada haddii aysan helin keer fiican tusaale ANC fiican oo hooyada maysa tegin waxaa laga yaabaa dadka xataa dhalanayo dad tababaran inay yihiin waxaa laga yaabaa de adiga qofkii bukaanka ah iyo qofkii u shaqeynaya isfahan daro soo dhexgalo ama mashquul yar soo dhexgalo ay hooyada ama hooyada primary support loo sameeyay markay hooyada cunug dhalayso inta badan hooyinka waxaa la sameeyaa primary support dadka oo caafimaadka yaqaan primary support loo sameeyaa cunug meesha qof oo loo celiyaa soo haddii dhici weyso in loo celiyo 10% laga yaabaa inay isku furan noqoto laakiin dhafi qalil ma badna in noqdaan isku furan doctor hadda waxaan ka soo hadalnay waxyaabaha sababa fistulaha waxay tahay inuu u gudagalno su'aasha saddexaad ma jiraan calaamado ama noocyo loo kala qaybiyo fistulaha ama obstetric fistula dhowr nooc loo kala qaybiyo fistula waxaana lagu ogaadaa examination ayaa lagu ogaadaa dhakhtarka ayaa ogaanaya bukaanka waxaa loo sameeyaa BV-ga ayaa lagu ogaadaa qalimadeeda dhowr nooca loo kala qaybiyaa inay tahay VVF inay tahay high VVF inay tahay small VVF inay premier tier 4 degree hooyada ay tahay soo dhakhtarka ayaa ogaanaya haddii dhakhtarka oo fiiriyo oo asaga go'aansado inay high VVF tahay qalina loo baran gareynaa dan qalinkaas loo sameeynaa haddii small tahay qalin haddii tahay premier tier 4 degree haddii noqotane markasta waa qalin dhowrkaas nooc loo kala qaybiyo high VVF small VVF iyo RVF iyo premier tier repair waa la sameeyaa doctor waa maxay complication-ka ka dhalan kara isku furanka hooyada ama obstetric fistula wallaahi complication badan ka dhalan karo hooyadii iyadoo xaalad caafimaad haysanin ama guriga joogto ama emergency wax walba ugu dhacaan oo isdhaxdo bal maanta foolku ma hayso bal joog mal istalka caawa tagay weli xanuun kuma qabin isma hooyooyinka inta badan isdhahaan marka waxaana sabab waxay tahay hooyada gurigeeda ku dahday hooyada goob caafimaad imaan hooyadii de ANC-na booqanin umalas xaafadeed iyo meel xataa dad bukaano qaar hooyo qaar xataa waxaa jiraan umalas xaafadeed aan helin isbitaal aan helin meel baadiya joogaan soo marka dad aan aqoon u lahayn haddii loo geeyna sidoo kale
furanka oo sababta hooyadii oo CBD ahayd waxaa laga yaabaa balfigeedana aad soo yaraa in hooyadii buushin loo sameeyo la reexo la qasbo hooyadii waa laga yaabaa oo iyadoo tabar dari meesha ka dhacday rafaad jiro tiir badan imaaday kadib la dhaho isbitaal ha loo refer gareeyo oo xitaa haddii isbitaalka markii noola keeno xataa ama la keeno isbitaal hooyada hesho haddii xataa cunugii dhasho waxaa laga yaabaa fistula noqoto markay muddo kasoo wareegtaa fistulada loo refer gareyn karaa meeshaasna waxaa keentay hooyadii markii fool noqoto isbitaal maysan la xiriirin ama goob caafimaad meesha tegin. doctor maadaama aad tahay dhaktar isla waqtigan ka howlgala isbitaalka daydeeda ma jiraan hooyooyin fara badan prolonged labor ama hooyada waqti badan ee qaadatay foosheeda mararka qaar waxaa arkaysaa MCH-ka hooyada ku foolanayso muddo aad u fara badan kadib la keenayo isbitaalka oo kuwa private-ka la keenayo hooyada tearing ku dhacay cervical tearing ku dhacay mararka qaar waxaa dhacdo in hooyada cunugeedu big baby ah aad loogu bushgarayo hooyada dhibaatooyin badan ee halkaasi kaga soo dhacdo ma jiraan kiisas badan oo aad la kulantay? Way jiraan kiisas badan oo prolonged labor iyagoo 3 maalin 2 maalin lagu soo haystay saxaafadeed ama meel iska joogeen hooyada markay isbitaalkan ay nooga imaado inta badan bulshadeena qaliin hadday maqlaan hooyada waa la qalaa mar hadday maqlaan dadka way ka cararayaan sababta qaliinka waxay u maleeyaan dadkeena wax xun qaliinka wax xun ma ahan waa wax hooyada iyo cunugii oo keliya loo kala badbaadinayo marka anagan dadka bulshada wax u baranay inaan ayagii wax u qabano hooyinka markii noola keeno haddii prolonged labor hooyada tahay oo aniga u aragno inaan qaliin u sameyn karno ayaan qaliin u baran garaynaa inkastoo jiraan bukaana qaar qaliin markaa dhahno qaliinka diidaan iska soo baxaan wadankeena dowladda kama jirto marka iska soo baxayaan waxay ku dhahaan isbitaalka la geysanaynaa isbitaalka la geynaa qaliina la dhaha way diidayaan marka 3 isbitaal tagaan kadib qaliinka aqbalayaan qaar waxay jiraan fiican marka sababta loo qalaayo xaaladda hooyadii cunugeedii markaan u sharaxno qaliinka noo ogolaanayaan kadibna qaliinka u sameeyaan way jiraan. doctor ka waran haddii miskaha gabadha uu yar yahay hooyadaas ma laga yaabaa in si caafimaad ay ku dhasho ama waxaa dhici karo isku furan siday hadba u yaqaanan Soomaalida? maya ma dhici karto hooyada haddii oo kafkeeda aad u yar yahay oo CBD ta hooyada delivery ma ku dhali karto anaga inta badan dhakhaatiirta haddii aan nahay kiisaskaas oo kale waxaan siinaa janiskaasna haddii ay hooyada ku dhali weyso qaliin oo balan garaynaa qaliina loo sameeyaa. doctor sidee looga hortagi karaa isku furanka hooyada xilliga urka? waxaa looga hortagi karaa 2 siyaabood. kow hooyada haddii aysan ku dhali weyso haddii aysan ku dhalin karin 24 saac inaysan sugin fool oo la dirqiyo inay raadsataa goob caafimaad ama isbitaal tagaan saalo qaliin leh si hooyada haddii ay macaato qaliinka loogu sameeyo sababta haddii hooyadii ama saxaafadeed ama MCH ay joogto 24 saac ka badan ku foolato 2 maalin ku foolato cunuga ka dhimanayo waxna mu qaban karaan oo sababta dhakhtar gayna aba surgery mu joogo saalo ma lahan marka midaas loo sameyn kara tan kale labada loo sameyn kara xitaa umlisooyinka meeshaan xafirin ugu daray horta umlisooyinka xaafadeedka way jiraan dad aad u wanaagsan oo wax yaqaanaan dad wax bartay qaar macallimiintana qaar dhaliin inay ku jiraan macquul waay anaga nafteena laakiin bukaanka haddii adiga aadan u arkin inuusan meeshaan kugu dhali karin waa inaad isbitaal iskaga dirtaa sababta dhakhtarka obiska ah ama dhakhtarka isbitaalka joogo wuxuusan arkin ayaa laga yaabaa aragtid marka bukaanka haddii uu normal delivery kugu dhali waa inaad isbitaal iskaga refer garayso si hooyadani baahideeda loo wax qabtiro loo sameeyo. doctor bahda caafimaadka waxay sheegaan isku furanka hooyada in ay qayb ka tahay malnutrition ama nafaqo darrada ku timaada hooyada soo marka su-aashan rabo waxay tahay malnutrition sidee ku keeni kartaa isku furan ama obstetric fistula? horta inta badan dadka u nugul inay noqdaan isku furanka hore kuga sharax laakiin malnutrition way jirtaa hooyada mararka qaar inay keento sababta inta badan gabdhaha hadayna ku sheegay 2 sano wixii ka yaray badan yahay ku
ku dhaco isku furanka haddii gabdho yarar waaye way guursanayaan maybe hero cunto inaysan ahayn inaysan cunto cunaynin dee hooyada markay uur yeelato waxyaalo badan waxaa jira fitamiina hooyada ay leedahay inay cunto la rabo mar walba dhakhtarku lama tagto mar walba ANC tagto hooyada booqato xaaladeeda caafimaad lala socdo cuntooyin waxaa jiro waqti qaar ay cuni karto hooyada inaysan cunin inta badan wadankeena ma cunaan gabdhaheena cunto heer cunto ma-aan mar haddii uur ay yeeshaan cunto dhan ma kaa cunayaan marka saasna way sababtaa hooyadu iyadoo malnutrition hadda leh 9 months sii noqoto hooyadii oo xataa tabar ay ku fuulatay aysan lahayn doctor inta badan bahda caafimaadka waxay sheegaan isku furanka hooyada in ay u badan yihiin hooyooyinka ku nool miyiga markii loo eego magaalka soo marka maxay tahay farqiga u dhaxeeya hooyada uur kale oo ku nool miyiga iyo tan ku nool magaalada teeba inta badan u nugul ama halis ugu jirta wallaahi waa su-aal aad iyo aad oo muhiim u ah dadkan rabaan inay fahmaan dadka horta nambarkood dadka baadiyaha degan ama meelaha miyiga degan dhammaantood horta ma aaminsano isbitaal inay tagaan sababta isbitaalka dhanba shalay u arkaan waxay aaminsan yihiin in hooyadii gurigeeda iyadoo joogto keligeed iska dhalayso qofna caawinaynin waxaana keentay aqoon daradii dadkii oo aqoon ma lahan anaga dhaqaatiirteena inta badan muqdisho wada joognaa dhakhtar maanta baxaayo gobol aadaya ma lahan way fiicnaada dhaqaatiirteena obstetriga inay gobolada tagaan oo dadka hadduu walaalahan waaye ma cilmi ahaan ma u fahansano xaaladda jirta isku furanka wax keeno laakiin haddii dhaqaatiir loo geeyo tuulo kasta dhakhtar la geeyo tuulo kasta laga furo waxay ila tahay in isbedel badan oo imaan lahaa hooyada markay foolato dhakhtarka isbitaalka la keeno haddii qalin u baahtan qalinkeeda hesho haddii si oo saafan delivery u hesho haddii gobol isbitaal la geeyo dhaqaatiir la geeyo aad u fiicnaan lahayd doctor waxaan rabaa su-aal muhiim inaan ku weydiiyo hooyada uurka markay leedahay ama loo sheego in ay qabto xanuunka isku furanka ragga Soomaaliyeed qaarkood badankooda ma aha laakiin qaarkood way ka fogaadaan xaaskooda markay ogaadaan ama loo sheego isku furan xanuun kala duwan inuu ku dhacay soo maxay tahay dhibaatooyinka jira ama ka dhalan kara sababta maxay tahay ragga ugu fogaanayaan hooyada ragga horta dhammaantood ma ahan dad wanaagsan way jiraan oo xaaskooda aad iyo aad u jecel dee qofka shalay markaa gursanaysa wanaag isku gursateen qurux iyo jecel ayaa jirtay maantana dee amri ilaahay baa dhacay amri ilaahayna dal iskuma naco rag way jiraan kana tegin nan la joogaan dee isku furanka dadka ka fogaada inta badan xaasaskoodana waxay la tahay barnaamijka inay waraysigiina daawo doonaan fariin ay u diri lahaa iyagana mar haddii hooyada taas ay noqoto xaalad isku dhacday wax ay weligeed qabayso ama weligeed ay noolaanayso maaha waa wax loo samayn karo dhaqaatiir Soomaaliya joogto dhaqaatiir ajaanib wadanka joogaan waa wax dib haddii isbitaal loogu celiyo rabeer loo rabeergaray karo hooyadii loo qurxi karo shalay sida aad looga dhigi karo doctor aan ka dhexgalay ma jiraan ka hortag hore waa lagu soo sheegtay in laga hortagi karo xanuunkan fistulaha ma jiraan recurrence ama soo laabasho marba hooyada haddii uu laga daaweeyo ma jiraan soo laabasho way jiraan hooyada mar haddii fistula ay noqoto dan anada balaanka labaad xiga loo sameeyo xitaa hooyadii in qalin loo sameeyo tusaale hooyadii fistula ka hor ma jiraan doctor daaweyn ama daawo sax ah oo hooyadaas lagu daaweyn karo xanuunka fistula maya fistula horta mar haddii bukaanka fistula oo noqdo daawo ma lahan waa qalin oo kaliya laakiin haddii qalinka loo sameeyo waxaa jiraan bukaano qaar inta qalin loo sameeyey haddana sanad kadib dale qalin kale lagu celiyo fistula waxaana keenay hooyada markii loo sameeyey fistula qalinka dhakhtarka uu sameeyey kadib isbitaalka maanta laga fasaxayo waa in loo sameeyaa fan planning ama cirbad ilmaha kala fogeyso hooyadii inay qaadato mala kulantay hooyo lagu faquuqayo xanuunkan fistulaha maadaama inta badan Soomaalidu isku daacayadeeyaan xanuunada haliska ah waa la kulmay hal bukaan ma dhowr kiis la kulmay waliba gobolada nooga imaadeen yaa faquuqayo ma ninka dadka ama walaalihiisa ama familka ragga familka oo gabarta ay ka dhalatay familka ninkeeda asxaabteedii deegaanka dad gobolka degnaayeen dadka
gobolada ka imaadeen ayay u badiyaan inta badan xaaladaas. way noo imaadeen sanadkii hadda kaabeenka sameyn ayaan ku darnay iyagoo nabad qabo la fooqooqeynin bulshadoodii dhinac ka raacay wadda dib ugu laabteen goboladoodii. sanadkii tagay Titore 2021 waxaa jiray campaign aad u xoogan oo hooyooyinka uurka leh kuwa fistulaha obstetric fistula campaign xoogan oo isbitaal daynin loo sameeyay sanadkii tagay 2021 imise kees ayaad aragtay oo loo sameeyay isku furanka horta waa sax kaabeenka ugu dambeeyay last campaign in Soomaaliya anaga sameynay isbitaalka lagu sameeyay markuu wax mahad iskale hay'ad back suurta gelisay iyo wasaaradda caafimaadka qaasatan Dr. Cabdalle tiimkiisa aad garab noo siiyey iyo maamulka isbitaalka saadey noqoto guddiga boorka oo aad iyo aad intaan ugu salaamayo oo la'aanteed bukaanadaas xaba loo qaban lahayn iyo Dr. Cabbaas Raxmaan Sheego oo ah agaasimaha isbitaalka waa sin aad iyo aad garab u siiyey in bukaanadaas service free ay helaan iyo dhaqaatiirtii walaalaheen Suudaan noogu imaaday oo qallimada noo sameynayay ayagana aad iyo aad ugu mahadnaa Dr. Xasan Dr. Saalax dhammaan asxaabtii noo imaadeen Suudaaniskana aad ugu mahad celinaa. Dr. ma jireen consultation oo aan la sameyseen ama u sameyseen dadka markaas qallimada loo sameynayo waa jiraan wadatasha aniga aan u sameynay dhaqaatiirta sameynayeen fistulada rabeerka ama qalliinka loo yaqaan fistulada waxa ay dhaqaatiir jaanibi Suudaanis oo dad walaalaheen aad iyo aad noo garab siiyay wadanka nooga imaadeen waa u mahad celinaa markastana waan jeclaanay noo imaadaan waa kaabeenkii sagaalaad oo isbitaalka lagu sameeyo ama Soomaaliya lagu sameeyo anaga iyo dhakhtarka iyo bukaanka anaga u dhaxeynay oo anaga dhaqaatiir Soomaalida anaga meesha joogno bukaankii wuxuu ka rabaa inaa turjumaan oo turjunta dhakhtarkii si fiican oo wada tashanay inta hadda qalliinka loo sameeyay oo aan ku guuleysanay maalintii baxayn waa soo wadinay inaysan mar dambe insha Allah xaaladdan oo kala dhicin isbitaal la xiriiraan dhaqaatiirna la kaashadaan waan kula talinay. Dr. kiisaska aad u sameyseen isku furanka hooyada oo kale ay ku dhacay ma jiraan cadad intee in la eg ayaad qabateen isla sanadkii hadda tagay 2021 wallaahi sanadkii hadda 2021 waxa ahay sanad aad iyo aad bulshada qaarkood ugu faa'iiday qaarna ugu faa'iidin anaga hadda kaabeenkii ugu dambeeyay 380 meelahaas 385 kiis ayaan sameynay kaabeenkeena mar dhow last week oo noo dhamaaday kaabeenkii noo dhamaaday intaasna maasha Allah inta qalliinka la sameeyay dhan waa lagu guuleystay haddana gobolada inta badan kiisaska noo imaadeen gobolada ka imaadeen way yaryihiin bukaan xamar anaga ka qabanay inta badan gobolada noo imaadeen bukaanada xataa gobolada jiro qaarkood waxa jirka diyaaradda xataa awoodin diyaarad tigidhka waa la siinayay haddii imaadaan Muqdisho isbitaalka la keeno quraac isbitaalka ku lahaayeen qada isbitaalka ku lahaayeen casho isbitaalka ku lahaayeen aad iyo aad ugu mahad celinaa dhammaan maamulka isbitaalka iyo hay'ad back. ugu dambeyn Dr. waxaynu isla soo gaarnay guntiga gabagabada barnaamijka Tusaha Caafimaadka Rajo TV dadka ku daawanaya ama bulshada ku xiran shaashada Rajo TV maxaad kula talin lahayd? Waxaan kula talin lahaa dhammaantood siiba hooyooyinka inay mar walba iska warqabaan mar walba isbitaalada booqdaan waa dareemi karaa dad waxaa jira isbitaalada aad iyo aad uga cabsado isbitaalada ka cabsinaa walaalihiina joogo dhaqaatiir Soomaaliya joogto service anagu la qabanaa oo free adikina ku faa'iideysiin insha Allah waan rajaynaa in soo booqdo doonaan. fariintaad u diri lahayd maxay tahay ugu dambeyn hooyooyinka lagu faquuqo xanuunka isku furanka ee ku dhaca haweeneyda ama hooyooyinka? horta waa waxa fariin aad iyo aad muhiim ah u dirayaa hooyooyinka dhaca in lagu faquuqo isku furanka horta hooyo haddii aad ku haysato isku furan ma aha horta wax weliga adiga la noolaanaysid ama la joogis gurigaada waa wax dhaqaatiir walaalaha Soomaali wax barteen ku sameyn karo haddii aad soo baxdo isbitaalada Soomaaliya imaado wax lagu sameyn karo qalimadaas shalay bulshada waxay u noqonaysaa ma aha laakiin wax weligood
kugu haynayaan lagugu nacay lagaaga fogaaday ma aha waa wax lagu qaban karo oo dad wax ku qabtaan iyo xamar ay joogaan haddii dhakhaatiir Soomaali ahayd haddii dhakhaatiir ajaanib ahaa lahayn waa loo qaban karaa hawada jaanis still jaanis waa leedahay mahadsanid amaan Dr. Mahad Garaad Xasan guud ahaan daawadayaal halkaasi waxaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka tusaha caafimaadka barnaamijka hawada inta uu ku jiro waxaa idiin soo saartay islamarkaana idinla socodsiinaysa anigoo ah Baaji Cabdullaahi Salaad waxaa ii farsameynay Cabdisalaan Blaawe toddobaadkan barnaamijka waxaa igala qayb qaatay Dr. Mahad Garaad Xasan barnaamijkan kiisa xiga daawadayaal waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo caafimaad horumar leh